بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastood joogtaan ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegno maxaa dhacay 7 Oktoobar. weydiinta la xiriirta maxaa dhacay 7 Oktoobar iyo waxyaabihii ka horreeyay weerarka ay qaaday Xamaas ayaa waxay wax soo laabta oo in badan asxaab nagu xiran ay soo weydiinayaan. haddaba warbixintan ayaa ku siinaysa macluumaad. subax hore oo Sabti ah 7 Oktoobar waxay dunidu ka warheshay weerar lama filaan ah oo ururka Xamaas uu ku qaaday deegaanada dhulka Israa'iil ay haysato. kaasoo si dhaqso u noqday weerarkii dhimashada ugu badnaa gaarsiiyay Israa'iil ilaa maantana weerarka duulaankaas ay uga jawaabayso Israa'iil ayaa ka socda marinka Gaza, Lebanon, Syria ilaa uu noqday weerar wax badan ka bedelay xaaladii bariga dhexe ee dunidaba. laakiin maxaa ka dhacay marinka Gaza oo halka weerarkaasi 7 Oktoobar dhacay laga soo abaabulay? sidee weerarka loo qaabeeyay ilaa heer intee wax laga ogaa inuu jiro diyaarinta weerar sabab u noqonaya inuu ceebaysto sidoonkii Israa'iil reer galbeedka iyo Carabtaba? Masar miyay wax ku ogeyd weerarka? su'aalahan iyo haddii aadan wax badan ku ogeyn weli sida weerarka loo diyaariyay waxyaabihii ka dhacay marinka Gaza ka hor intaan weerarka la qaadin, warbixintan ayaa ku siinaysa macluumaadka oo dhan. kadib weerarka waxaa la ogaaday inay jirtay xiriir ay la sameeyeen sirdoonka iyo laamaha ammaanka Masar dhinaca Israa'iil, iyagoo u sheegay inay wax weyn ka socdaan marinka Gaza. laakiin markaa dhab ahaantii sirdoonka Masar ma qiyaasin inuu dhici doono weerarka argagaxa gelin doona. muxuu ahaa oo ay u arkeen sirdoonka Masar inuu wax weyn ka socdo marinka Gaza ka horba inta aan weerarkaasi la qaadin? runtii waxaan dhihi karnaa waqtiga ay tan arkeen Masaarida waa 12 bishii Sebtembar sanadkii 2023, bil ka hor inta uusan dhicin weerarkii 7 Oktoobar. marka hore waxaan ku siinayaa dhacdooyinka xilliga dhacay iyo waxyaabaha ay u arkeen wax weyn inuu ka socdo marinka Gaza sirdoonka Masaarida. si aan taa u ogaano waa inaan tagnaa qolka howlgallada wadajirka ah ee iska caabinta Falastiiniyiinta ee marinka Gaza. waxaa jira wax la yiraahdo qolka howlgallada wadajirka ah ee kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta ee Gaza. goobtu waa halka ay isugu tagaan hoggaanka iyo howlgalayaasha dhammaan dhaqaaqyada iska caabinta ee ka jira marinka Gaza, kuwaasoo loo aqoonsan yahay inay ka kooban yihiin ilaa 12 urur ama dhaqaaq. waxayna kala yihiin Al-Qassam, guutooyinka hubeysan ee Xamaas; guutada labaad waa guutooyinka Al-Quds oo ka tirsan Islaami Jihad; guutooyinka Al-Aqsa ama guutada Naadil Al-Umaadi; guutooyinka Abu Cali Mustafa; guutooyinka Al-Nasir Salax Al-Diin; guutooyinka iska caabinta qaran; guutooyinka Al-Nasir; guutooyinka Al-Mujaahidiin; guutooyinka Cabdi Al-Qadar Al-Xuseen; guutooyinka Jihaad; guutooyinka Duufaan iyo guutada 12aad ee kooxda Martyr Ayman. 12kan kooxood waxay leeyihiin qol loogu magacaabo qolka howlgallada. bishii Sebtembar markay ahayd 10 waxay soo saareen war-saxaafadeed wadajir kadib kulan ay ku yeesheen qolka howlgalka wadajirka ah ee iska caabinta marinka Gaza. sida uu ku tusaya muuqaalkan, markaa war-saxaafadeedka waxaa looga hadlay ujeedada kulanka oo lagu sheegay iyadoo kulanku uu qayb ka yahay ilaalinta iyo diyaargarowga amni. hoggaanka qolka howlgalka wadajirka ee kooxaha iska caabinta waxay sameeyeen kormeer sahmin ah oo lagu ogaanaya amniga xayndaabka u dhaxeeya marinka Gaza iyo dhulka la haysto ee Falastiin. howlgalka qolka wadajirka wuxuu bogaadinayaa feejignaanta iyo dadaalka ay muujiyeen dhaqaaqyada iska caabinta, wuxuuna qolka ugu baaqayaa inay sare u qaadaan diyaargarowga, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka soo baxay bishii Sebtembar 10keedii sanadkii hore ee 2023. war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu cadeeyay in la qaban doono xuska sanad guurada ka bixitaanka cadowga ee marinka Gaza oo loo yaqaano Rukni al-Shadiid 4 ay wadajir u qabtaan dhammaan dhaqaaqyada iska caabinta ee marinka Gaza. haddaba waa maxay Rukni al-Shadiid? Rukni al-Shadiid 4 waa maalin loo aqoonsan yahay ka bixitaanka ciidanka Israa'iil ee marinka Gaza 12 bishii Sebtembar sanadkii 2005. kadib iska caabin ay kala kulmeen dhaqaaqyada iska caabinta, waxaa lagu khasbay ciidanka Israa'iil oo la gaarsiiyay khasaare weyn inay isaga baxaan marinka Gaza. intii u dhaxaysay 12 Sebtembar 2005 ilaa 12 Sebtembar 2023 waxaa dhaqaaqyada iska caabinta marinka Gaza ay qabteen 3 dhoolatus oo lagu xuseeyo ka bixitaanka ciidanka Israa'iil marinka Gaza ee waqtigaas. mid kasta oo kamid ah dhoolatusyadu wuxuu ka weynaa midkii ka horreeyay, sabab la xiriirta in dhaqaaqyada iska caabinta ay sare u qaadeen tan iyo 2005 wax soo saarkooda ay ku jiraan kororka tirada ciidamada ku biiraya dhaqaaqyada iyo hubkoodaba. si kastaba ha ahaatee 25 maalmood ka hor Oktoobar 7, 2023 waxaa dhacay dhoolatuskii ugu weynaa ee Rukni al-Shadiid 4 oo la qabtay maalin Talaada 12 bishii Sebtembar sanadkii 2023. markaa waxay soo bandhigeen dhaqaaqyada iska caabinta Gaza cududooda ciidan iyo hub. waxaa xataa dhinaca badda loo riday gantaalada ridada dhexe oo ay haystaan iska caabinta iyo dhammaan hubkii kale oo ay ku jiraan gantaalada garabka laga rido iyo qoryaha darandooriga u dhaca oo ay weheliyaan inay ciidamada iska caabinta soo bandhigeen taatikadooda dagaal sida lagu arkayo muuqaalkan. qof kasta wuxuu arki karay dhoolatuska maadaama qof kasta oo ku sugan Gaza ama ku dhow uu arki karo gantaalada la ridayo iyo dhawaaqa hubka.
si la mid ah dadka ku sugan marinka Gaza waxaa kaloo dhowlatuskan meel dheer ka arki karay ciidanka Masar ee ku sugan isgoyska marinka Philadelphia si la mid ah askarta Israel ay ku sugan deegaanada ku dhow marinka Gaza iyo dhabarka dambe ee xindaabka koonfureed ee Gaza ayaa arki karay waxa ka dhacaya marinka Gaza iyo dhowlatuska ay sameynayaan iska caabinta. waxaan ula jeedaa ma aragteen muuqaalada dhowlatusku wuxuu ahaa tilmaam in weerar weyn uu dhici doono. dabcan waa maya waxaana loo yaqaanaa rukn al-shadiid 4 wax weerar ama dhicin xilligaas sababtoo dhammaan dhowlatusyadii la qabtay xuska rukni al-shadiid 1 2 iyo 3 ba ma jirin wax weerar oo la qaaday isla maalmahaas iyadoo la qabanayay dhowlatusyo waaweyn. intaa waxaa dheer dhammaan 12 kooxood ee ka qayb qaatay rukn al-shadiid 4 mid kaliya ayaa qaaday weerarkii 7 Oktoobar garabka military ee Hamas gutooyinka Qassam oo madaxiisu uu yahay Maxamed Dayf Abu Khalid. dagaalyahanada Qassam ee ka qayb galay rukn al-shadiid 4 wax war ah kama hayn 12 Sebtembar ama ka hor 7 Oktoobar in 7 Oktoobar uu dhici doono howlgal loogu magac daray daadadka Al-Aqsa waana kan cadeynta. Usaam Hamdan oo kamid ah hogaamiyaasha sare ee Hamas ayaa hadlay 26 bishii Oktoobar sanadkii 2023 waa 19 maalin kadib markii uu dhacay weerarka wuxuuna yiri markii hogaanku go'aansaday in la fuliyo howlgalkan waxay arintaasi ka qariyeen askartooda waxayna ku wargeliyeen saacado ka hor inta aan la bilaabin weerarka. waxaa la qorsheeyay weerarka inay qaadaan ilaa 1400 mujaahid. qorshaha waa inay ka gudbaan xayndaabka marka uu la siiyay ikhtiyaarka inay ku sii socon karaan ama ay ka cudurdaaran karaan haddii ay haystaan sabab macquul ah. hogaanka ayaa go'aankan kaga yaabiyay dhammaan mujaahidiinta si degdeg ah ayaa loogu yeeray magacyada 1400 oo dagaalyahan oo ka tirsan guutooyinka hubeysan ee Qassam kuwaas oo awooday inay ka gudbaan xayndaabka sidii la qorsheeyay ayna howlgalkaasi u fuliyeen. guutooyinka Qudus oo ah guutooyinka labaad ee ugu xoogan marinka Gaza miyaysan ka qayb qaadan howlgalka 7 Oktoobar waxaan ku siinayaa xaqiiqda kaliya 1400 oo dagaalyahan oo ka tirsan guutooyinka Qassam ee garabka hubeysan ee Hamas ayaa markii hore fuliyay howlgalka muddo saacada kadib cidna ma ogaan waxa meesha ka socda ilaa ay dadku arkeen in cutubyo ka tirsan Qassam ay ka gudbeen xayndaabka oo ay gudaha u galeen dhulka Israel haysato dibna ugu soo laabanayaan gudaha marinka Gaza. tani waa in ka hor qof kale intuusan ogaan Qassam waxay fuliyeen howlgalkoodii bartilmaameedyada ay doonayeen ayay gaareen. waqti kadib tani waxay keentay in kooxihii kale ay ku biiraan oo xataa dadka rayidka ee Gaza ma ahan dagaalyahanada ayaa gudaha u galay saldhigyada iyo deegaanada dhulka Israel haysato. Al-Qassam ayaa ku dhawaaqday howlgalkan iyadoo sii deysay hadal duuban oo ujeediyay madaxa guutooyinka hubeysan ee Qassam ee garabka military ee Hamas Maxamed Dayf saacadu markay ahayd 8:47 subaxnimo isagoo ku dhawaaqay in howlgalka daadadka Al-Aqsa la bilaabay. tani waxay ahayd saacad kadib markii howlgalka la fuliyay waana xilli la qabtay ujeedadii howlgalka laga lahaa. guutooyinka Qudus dhinacooda waxay soo saareen war-saxaafadeedkii ugu horreeyay 9:09 subaxnimo. dagaalkan qayb ayaan ka nahay dagaalyahanadeennu waxay garabka ku hayaan walaalahooda guutooyinka Qassam ilaa guul laga gaarayo insha Allah ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. kadibna waxay ku biireen dagaalka. maalin kadib weerarka oo jahwarar ku riday hay'adaha sirdoonka ee Israel, Carabta iyo reer galbeedka. wakaalada wararka ee AB ayaa ku warantay in Israa'iil Masaari ah ay ku wargeliyeen dhinaca Israel kor inta uusan weerarka dhicin in weerar uu ku soo socdo. laakiin tani ma dhab ah. Sebtembar 12 2023 maalmood ka hor Oktoobar 7 Masaarida aad bay u argagaxeen kadib markii arkeen dhowlatuska rukn al-shadiid 4 isla markiiba waxay u tageen Israel. waqtiga Israa'iiliyiintu waxay diiradda saareen daanta galbeed iyagoo hoos u dhigay khatarta uga imaan karta dhinaca marinka Gaza. taa macnaheedu waa maxay? maamulka Masaarida ayaa ku wargeliyay Israa'iiliyiinta inay arkeen dhowlatus weyn iyo in ay noqon karto tilmaamta muujinaysa wax weyn oo dhici doona. waxay ku eedeeyeen Israa'iiliyiinta inaysan diiradda saarin Gaza si la mid ah daanta galbeed sida ka muuqata warbixinta wakaalada wararka ee AB. laakiin maxay tahay sababta ay Masar uga walaacsanayd arinta Gaza? dowladda Masar marna ma aysan doonin in uu dagaal ka qarxo marinka Gaza sababtoo ah markaa waxay la kulmi kareen cadaadis. sida aan hadda ka aragno kumana guuleysan dowladda Masar inay furto albaabka Rafah si gargaar ama loo badbaadiyo Falastiiniyiinta xaalad kasta oo ka dhalan karta dagaalka dhaca marinka Gaza. dabcan tani way fududahay sababtoo ah walaaca dowladda Masar wuxuu ahaa waxa hadda aan arkayno. dagaalka socda muddo sanad ka badan dadka Gaza ayaa la kulmay xaalad bil-aadanimo midda ugu xun oo ka dhalatay in loo diiday in marinka uu galo gargaar. waxayna sii ogay dowladda Masar inay wajihi karto marxaladan hadda taagan iyadoo marka uu jiray walaaca in xaaladaas ay dhalin karto kacdoon weyn oo gudaha Masar ka dhici kara. walow aysan jirin wax dhaqdhaqaaq oo hadda laga arkay Masar xilli marinka Gaza loo aqoonsaday in uu yahay aag lagu riday wax ka badan 2 bombo oo nuclear ah. taasoo jirta ayaa waxaa dadku ay la kulmayaan go'doomin aad u daran
oo laga hor istaagay cunnadii biyihii dawadii sida iska cad Israel waxay sii ogeyd inay qasa ka dhacayaan waxa ay doonayso oo Masar iyo dal kale uusan soo faragelin karin nooc kasta oo xasuuq ay ka geysanayso marinka Gaza taasina uma baahna hadda inaan dib u eegno waa waxaan arkayno aan ku soo laabto markii saraakiisha Masar ay u sheegeen Israel walaaca ay ka qabaan dowlatuska ka dhacaya marinka Gaza waxay Israa'iiliintu ku jawaabeen inay haystaan tiknoolajiyad casri ah oo basaas waxayna ku andacoodeen in dowlatuska dhacay uu yahay midkii afraad oo san ahayn midkii u horeeyay waxay sidoo kale ku qanciyeen Masarida inay Israel haysato ciidan iyo sirdoon aan laga soo gudbi karin dabcan tan waa fikradda ay haysteen Israel ka hor weerarkaas balse wixii weerarka ka dambeeyay inoogama baahna inaynu warbixintan ku soo bandhigno sababtoo ah waxaan u joogno iyo waxaan arkayno ugu dambeyntii warbixintii ayaan soo gabagabaynay waxaan kaaga tagayaa fikradaada dabcan warbixinada noocaan ah internetka lagama jecla gaar ahaan YouTube-ka iyo baraha kalaba waxaan codsanayaa marka inaad si weyn u baahisaan gaar ahaan in looga gudbi karo xaalad kasta xanibaad ama cadaadiska ay warbixintu la kulmi karto in la saaro falcelin tusaale ahaan in la badiyo like-ta oo la kulmiyo taas oo YouTube-ku uu aqoonsanayo inay tahay warbixin laga helay marka waxaan ka gudbi karnaa caqabad kasta oo ay la kulmi karto warbixintan inay ku sii jirto bartan YouTube mar kale intayna kulmayno sidaas iyo amaana Allah nabad iyo caafimaad qab